jirjirooruhu waxa uu caan ku yahay carab aad u dheer oo xooggan kaas oo uu ku soo qabsado noolayaasha kale. 4 lugood oo leh 5 farood iyo indho aad u waaweyn kuwaasoo meel dhow u keena waxa u jira masaafo aad u fog. dad badani waxay aaminsan yihiin inuu xayawaankani isbedelo midabkiisu, balse waxaa jira waxyaabo ku kalifa oo ay ka mid tahay dareennada ku xeeran ee ay ka midka yihiin cabsida iyo cadhada ama jawiga deegaankaas sida kulaylka, qabowga ama huurka. unugyada sameeya isbedbedelka midabka maqaarka jirjirooraha waxaa loo yaqaanaa iridovirus cells. mana aha xayawaankan oo keliya noolayaasha bedela midabkooda, balse waxaa jira xayawaano kale oo ay ka mid yihiin raha geedaha ee ku nool Basifiga, xayawaanka loo yaqaano faraska badda iyo caarada u eg ubaxa. luqadda Ingiriisiga waxaa loogu yeedhaa chameleon, afka Soomaaligana waxaa loo yaqaanaa jirjiroole, roor iyo geeldugeeye. cimriga jirjiroolaha duurjoogta ahi waxa uu gaadhaa 2 ilaa 3 sano, dherarkiisuna 15 ilaa 20 inch, halka uu culayskiisu u dhexeeyo 0.9 ilaa 1.8 kilogram. waxa uu leeyahay 8 iyo 20 hidde-side. sidka jirjirooruhu waa 5 ilaa 6 bilood, halkii mar waxay dhalaan beed u dhexeeya 4 ilaa 200 beed, taasoo ku xidhan hadba nooc ay tahay. dhashar jirjirooruhu waxa uu ku qaangaadhaa 1 ilaa 2 sano. noolahani waxa uu ka mid yahay xayawaanada quuta dhirta iyo cayayaanada yaryar, gaar ahaanna maalintii. jirjirooruhu waxa uu ku jiraa bahweynta muracyada. faraqa ugu weyn ee u dhexeeya kalab iyo tadhadig waa inuu kalab dhakada sare ku leeyahay gees yar oo dheer iyo in badanaa kuwa lab ay ka weyn yihiin kuwa dhadig. jirjirooruhu waxa uu ka mid yahay boqortooyada xayawaanka bahda lafdhabarleyda, gaar ahaanna bahweynta xamaaratada. sidoo kale xayawaankani waxa uu ku jiraa noolayaasha yaryar ee leh maqaarka dhibcaha badan leh, kaasoo ay ku jiraan masaska iyo muracyadu. bahda cilmiga saynisku waxay ugu yeedhaan Camaleonidae. jirjirooruhu waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa qaaradda Afrika, balse waxaa jira qaarado kale oo laga helo sida Aasiya iyo Yurub. waxaa lagu qiyaasaa noocyada jirjiroolaha ee adduunka laga helo in ka badan 150 nooc, kuwaasoo ku kala duwan dhanka midabka iyo xajmiga. nooca jirjiroolaha ee adduunka ugu weyn waxaa loo yaqaanaa Personis chameleon, nooca ugu yarna Brucasia nana. labadooda waxaa laga helaa jasiiradda Madagascar. jirjirooluhu waxay qoys isku dhow yihiin cashabadhida iyo qoratada waaweyn. ugu dambeyn, jirjirooruhu sida lagu ogaaday cilmi baadhisyo la sameeyey kama mid aha xayawaanada sunta leh ama dadka dhibaatayn kara, balse bahda caafimaadku ma dhiirigeliyaan cunidda hilibkiisa sababtoo ah qoyska mulacyada jirkooda waxaa laga helaa nooca bakteeriyada ee Salmonella. guud ahaan culimada Islaamku waxay isku raacsan yihiin cunidda hilibka jirjirooluhu inuu yahay xaaraan.